والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حقني وهنون فيرتشوال أكاديمي. هنون فيرتشوال أكاديمي ونوغا براتين إن كسو كدينو maadooyinka laga barto mid dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed oo ku salaysan qaacidooyin iyo calculation laga shaqeeyo oo badanaa ardaydu ka caawdaan yan jawaabahooda aan kusoo gudbinaan maantana mar horena kusoo gudbin jirnay. موضوعي كوري on soo bilownay way ahayd econometric baan soo bilownay ahayd econometric oo advanced form of statistics ah oo badanaa lagaga shaqeeyo researchayaasha iyo dadka buugaagta soo qalinjebinaya yaa qaybtan oo qaybtii introduction ku xigtay oo ah simple linear regression yaan maanta waxaan kusoo gudbinaynaa. intaanaan u guda gelin tan maanta bal mawduucii kan ka horreeyey oo bal wuxuu ahaa dib yaro soo qeexno. waxaanu soo baranay bay ahayd cid walba oo research soo diyaarinaysa ama isticmaalaysa econometric model waa lama horaan inay ay maraan procedurekan ama approachkan ama stepyaashan hoosta ku xubsan kaas oo ah marka koowaad waxay soo diyaarinayaan economic theory macnaha theory imika ka hor lasoo diyaariyey iyay ay qaadanayaan markaa maadaama ay hadafkoodu uu yahay waxa ay soo saari rabaan ama inay xaqiijiyaan ama inay ka horta ay lib ku noqdaan theoryga lasoo sheegay. markaa badanaa processkan waxaa la maraa marka PhD-ga ama masterka marka lasoo diyaarinayo weeyaan. markaa matalan Keynesian theory ama consumption theory ama demand theory ama noocu theoryyaasha walba ha noqdaa mid baad soo qaadanaysaa kaas marka ayaad ama aad xaqiijinaysaa ama waa run aad leedahay ama aad lid aad ku noqonaysaa kaas waxba kama jiraane waxyaalahan kale faktaradan kale ayaa saameeya baad mashiinada iyo soo dhigan rabtaa. marka theorygaas marka kuwa soo qaadanaysaa theoryga marka soo qaadatay theorygii baad u bedelaysaa mathematical model baad u bedelaysaa adigii oo lambar u bedelayo. matalan consumption is a function of quantity is a function of consumption baad kartaa. consumption is a function of quantity baad kartaa. marka iyadii oo waxaad kusoo qoraysaa ka dhigan tahay mathematical form marka maxaa la dhahaa mathematical model baa la dhahaa. mathematical modelka markaad soo diyaarisid kabacdi iyo haddana usii bedelaysaa econometric model. macnaha econometric modelka markaad soo diyaarinaysid waxa aad sheegaysaa dependent iyo dependent variableka meesha ku xusan inuu jiro mid kale oo ka saddexaad oo inner term la dhaho inuu meesha uu jiro ayaad ku xusaysaa. marka aad kaa kusoo darto wuxuu noqonayaa econometric model buu noqonayaa. markaad inta aad soo diyaarisid kabacdi iyaa haddaba u guudagelaysaa inaad dataha aad soo analysinaysid oo dataha soo urursatid. datahagaasaad marka aad si aad u computerkaysaas ku buuxiso ama ku fiir garayso oo natiijada uu kuu soo saari lahaa baad markaa dataha soo raadinaysaa. datahaga aad marka aad ama questionnaire-ka aad dataha ku raadinaysid waxaad side by side aad macnaha ay tahay informationaad soo gaada garanaysaa. informationadii baad meesha ku xusan tahay sida ku xusan yahay qaab ku xusan yahay iyo validity wax oo dhan taas garaysid iyaad ka bacdi modelkaagii baad estimation of model aad adigu aad leedahay oo hebel oo adduunkan uu ku soo biiriyey iyaad marka aad keenaysaa. markaasoo kale marka ay noqonaysaa inaad ku qalin jebiso PhD-gaaga. then marka waxa la leeyahay modelkan waxa soo diyaariyay Keynesian theory-ga Keynesian ku soo diyaariyay ya modelkaas soo diyaariyay hebel baa soo diyaariyay dhahayaa. modelkaas marka soo diyaariyay modelkaasna waa inuu uu test gareeyo hypothesis-ka. kabacdi marka maxaa ku sii xigay oo gobogobadii interpretation-kiisii baa meeshii soo galay ka dhigan tahay. okay hadduu kaasi uu taa u yahay cid walba ay taa ka siman yihiin haddana waxaa laga wada siman yahay variabladaas oo ah waxa laga hadlayo ka laga hadlayo. matalan dependent variable iyo independent variable ba meeshii ay imanayaan. dependent variable waa maxay waa kala explain shayga la faahfaahinayo. matalan waxaad ka hadli rabtaa IQ of student baad ka hadli rabtaa. IQ marka muxuu noqonayaa waa wixii laga hadlayay dependent iyuu noqonayaa.
IQ baas haddana the same time waxaa la oran karaa determined wixii kii la determine garaynayay buu noqonayaa ama endogenous variable kii uu yahay dependent variable kaas haddana maxaa jira dependent variable IQ baad ka hadlaysaa IQ-ga maxaa saameeya matalan waxaa saameeya bulshada meesha ay ku nooshahay maxay bay ku nooshahay oo kalluunka cunaan mise bariga kale ku nool yihiin then marka location kaas muxuu noqonayaa independent variable buu noqonayaa kaas ama explanatory key faahfaahinaya buu noqonayaa exogenous determinant variable buu noqonayaa marka in another word adigii oo within a given of independent variable maxaad marka aad predict sameynaysaa ama soo saaraysaa dependent variable kaas yaad macnaha maadaama ay dadku ay ku nool yihiin xeebaha ay kalluunka cunaan maskaxdooda ay kiigoodu fiican yahay marka conclusion caynkaasad gaari kartaa then marka waa dependent iyo independent marka leenahay haddana waxaa jira control variable kan waxa weeyaan laga yaaba adigan IQ-ga raadinaya inuu mid kaa horeeyay oo IQ soo raadiyay IQ-ga siduu ku soo raadiyay marka procedure-kiisi muxuu noqonayaa control baad ku noqonayaa kaasaad tixraacaysaa ilaa inta aad ka soo saarisid mid adiga ku qaasa marka haddana intaa kaga gudubnaan waxaan gadaynaa property of economic model walba oo adduunka ka jira waxay leeyihiin 5 siyaabood baa u gaara ta koowaad waxa weeyaan goodness of model is based on the following property hal model good waxa la oran karaa ama maaha waxa la oran karaa markuu 5 shay oo si fiican u qeexo ta koowaad waa theoretical plausibility waa inuu theoretically uu shaygaas u si fiican u qeexaa ta labaad waa explanatory ability waa inuu explain shaygii ku sheekeynay waa inuu qeexi karaa uu si fiican uga warrami karaa ta saddexaad waa accuracy of estimator of parameter parameter lagu sheegay waxa weeyaan waa alpha iyo beta at the same times waa termigii aan kaga soo dhigaynay econometric model aan kaga dhigaynay marka parameteradaas waa in si fiican mid accurate waa inuu noqdaa kale xitaa waa inuu noqdaa forecasting ability waa inuu qeexi karaa ama uu saadaalin karaa marka uu saa u yahay waa modelkaas waa model fiican baa la dhihi karaa at the same time waa inuu mid simple uu noqdaa simplicity oo mid complex uunan ahayn inta shay waa inuu econometric modelku uu yeeshaa marka intaan kaga gudubno cashirkan maanta ayaan u guuda galaynaa oo ahaa simple renal regression waa mawduuc aad u ballaaran oo welibana ku isticmaali doono computer iyo software badan oo isticmaali doonaa laakiinse waa inta shay meesha ku xogsan ayaan si fiican u dul istaagi doonaa koowaad waa concept of regression function kan conceptkaas waxa ku yimid ayaa soo saaray muxuu soo saaray intaaba markaa ka qeexi doonaa kabacdi simple renal regression maxaa loo yiri simple macnaha maxay ka dhigan tahay linear kuna muxuu ka yahay kaasna waan qeexi doonaa classical renal regression model macnaha classical kan casriga renal regression kan casriga muxuu u yahay Markov assumption kiisuna soo saaray muxuu u yahay kaan waan fiirin doonaa kabacdi waxaan fiirin doonaa estimation method of estimation saddex siyaabood baa loo estimate garayaa kaas oo ah OLS estimator method of movement iyo method with zero intercept kuwa dhahaya meesha kasoo fiirin doonaa inta aan soo fiirino waxaan aan fiirin doonaa dana statistical property of least square estimator OLS square kaas yani isbeetiyaashaas aan soo fiirin doonaa iyaga oo badanaa wax blue la yiraahdo jira blue estimators waa blue unbiased iyo least wax noocaas markaa kaana waan soo fiirin doonaa anagoo oo linearity of alpha iyo beta unbiasedness of alpha iyo beta iyo minimum variance of alpha iyo beta with qaacido with calculation ajaayib kaasoo shaqeynaa anagoo computer isticmaalna farahana ugala tagayna waan kaga shaqeyn doonaa tabacdi waxaan soo fiirin doonaa coefficient of determinators coefficient of determination ama r square kan waa badana ardayda marka ay test ka soo diyaariyaan yaa la dhahaa coefficient of determinant ka soo diyaarsay wuu yar yahay ama wuu badan yahay xagee ka keentay marka see loo helaa waxaas oo dhan waa ka soo shaqeyn doonaa intaan ka xino haddana goodness of fit
with R يعني هذا كاسو شقين دونا أنا كويس تبعنا statistical significance standard error test T test confidence interval F test أنا كويس تبعنا يعني calculation هذا باللارن موضوعية يبرنامج شوك إلى كولا وصد عفر قيبض له يعني كاسو ديار دونا مركب المركب كواد عن أقول concept of regression function concept isu muxuu yahay regression is a statistical method that attempt to determine the strength and the character of a relation between one dependent variable and a series of variable called independent variable regression kuisu macno maaha wuxuu cabirayaa strength and the character u dhaxeeya dependent iyo independent variable kii laga sheekeynayay iyo kii ka sheekeynayay marka ka laga sheekeynayo badanaa waa mid ku ka sheekeynayaan inay series of other variables inay noqdaan bay dhici karaan marka uu hal u noqdo waa simple linear regression markay one to one ka laga sheekeynayo hal uu yahay ka sheekeynayo hal uu yahay markaas waa simple linear regression ka aan jeednay waa ka haddii se uu ka laga sheekeynayo uu bato wuxuu noqonayaa markaa waa multiple linear regression buu noqonayaa ninka soo diyaariyey regression function kan waxaa la dhahaa Francisco Galton baa la dhahaa Galton markaa wuxuu ka shaqeynayay warshad khamriga uu ku soo shaqeynayay markaa inkastoo uu Trump maxaan ku raadayay Trump identification kan marka inuu inta soo saaran isagu ahaa markaa arday buu ahaa ardaygaas isaga markuu wuxuu soo diyaariyay regression to mean macnaha wuxuu soo diyaariyay dadka macnaha dhaadheer waxay ka yimaadaan buu yiri marka ay parentoodu uu gaagaaban yihiin waxay ay chance u helaan inay iyaad dhaadheer ay dhalaan haddii parentoodu ay gaagaaban yihiin chance-ga ay ku dhaliyaan buu yara badan yahay buu yiri ilmo dhaadheer ay ku dhalaan in another word haddii ay dhaadheer yihiin chance ay ku dhalaan ilmo gaagaaban uu badan yahay marka macnaha kaas fiiri regression to mean macnaha muxuu dhahay Galton observed that children of exceptionally tall parents tend to be shorter than their parents and vice versa ciyaalkoodu marka mar walba way ka yara gaabnaanayaan buu yiraahday parentoodu ay yara dhaadheer yihiin haddana wuxuu soo saaray correlation coefficient buu soo saaray correlation coefficient wuxuu soo saaray correlation coefficient which measures the strength and the direction of the relation between two variable code waxay inta u dhaxaysa coefficient u dhaxeeyana markaa ninkan uu soo saaray at the same time haddana wuxuu soo saaray regression line buu soo saaray regression line kaas oo xagga mawduucan maanta abdul istaagi doono oo isagoo oo toos aan arki doonana kaanays ninkan soo saaray ninkan ahaa marka ninkii hordhaca father of regression wuxuu ahaa ka dhigan tahay waa Francis Galton baa la dhahaa then regression analysis has the following objective and the uses regression function ku markaa faa'iidooyinkan uu leeyahay to show the relation among variable ka dependent iyo independent variable ka inuu u dhaxeeyo wuxuu yahay inuu si fiican u qeexo yaan ku ogaan karnaa to estimate the average value ama mean of the dependent variable given by the value of independent variable anna kuna sini independent variable ka waxayna soo saarnaa ma qiyaakan ama average ka ama estimate min karnaa dependent variable kan estimate karnaa test hypothesis inaan ku ogaanana waa samayn karnaa oo macnaha sign iyo magnitude ka u dhaxeeya hypothesis ka iyo yaan hadana ku ogaan karnaa forecast future value of dependent variable kana variables inaan ku ogaanana waan ku ogaan karnaa marka conceptiga si soconnaa we do not dependent variable ka waxa ku mar walba lagu xisaayo y baa lagu xisaab and the explanatory ama independent variable kasna waxa lagu xisaab x1 x2 ila xk marka if k is equal to 1 macnaha hadii uu x 1 2 3 ga kuwaas haduu hal aan ka leenahay macnaha hal dependent iyo hal independent aan leenahay we have one explanatory variable wadaha
marka termigan maxaa dahay a simple linear regulation ba marka aan la yiraahdaa kaas waa kan maanta ka shaqeeyno macnaha keegeenu muxuu yahay ka dhigan tahay keegeenu waa 1 if k is greater than 1 aduu ka bato oo macnaha aan leenahay x1 x2 x3 x4 nooc aan saas aduu u fusi barabado yahay marka waxaan ka dhiganay we have more than one explanatory variable ba leenahay marka uu saa u yahay waxaan leenahay ka dhigan tahay it's a multiple regression ba leenahay kaasi waa conceptii koobaad conceptiga labaadna waxa weeyaan our task is to estimate the population regression function marka meeshaas waa regression I mean our task is to estimate the population regression function marka xagar waa inaan si fiican aan u qeexnaan u ogaana wax loo baahan yahay wax weeyaan matalan waxaan soo ogaan rabnaa suuqan maanta price meeshan suuqa ka marayo inta uu yahay pricegaas marka inaan ogaano marka rabno looma baahno inaan suuqa min from A up to Z inta dhax wareegno oon anakoo soo rafaadno inaan soo wada qorno daasaskoo dhan looma baahno maxaa loo baahan yahay sample baan qaadanaynaa matalan samplekaasna qaacidooyin lagu qaataa jirta sample baan soo qaadanaynaa samplekii aan soo qaadanay iyaa aan markaa ku saadaalinaynaa suuqa gebi ahaantiinba matalan 100 dukaan baa yaa meesha 1000 dukaan baa magaalada ka jira 1000 dukaan anaka waxaan ka soo qaadanay samplekeenii 100 baan ka soo qaadanay 100kii 10 baan tagnay 10kii markaa ayaan darisnay 10kii markaa ayaan matali ka dhigan tahay 1000kii that means sampleka markaan saa u qaadano taasna waa assumption keenan ama concept of regression ka uu ka yahay macnaheedu wuxuu yiri our task is to estimate the population regression function population regression function kaasan estimate karayna on the basis of sample regression function anako sample soo qaadayna regression function which is accurately as possible with what tilmaamayna ko ayaan population regression function ka ku tilmaamayna it is to explain the variation in the dependent variable based on the variation in one or more independent variable anaki or independent variable ka variation kooda qeexayna waxa ka dhigan tahay waxaan in another one aan explain garaynay variation ka u dhaxeeya dependent variable ka taas adii assumptionadii aan soo qaadanay inta ay yihiin hadana waxaan u sii gudugalaynaa maxay ka dhigan tahay stochastic and non-stochastic relationship wax yiraahdo meesha jira a relation between x and y relation ka u dhaxeeya x iyo y which is a characterized y is a function of f of x walba loo qorayo is said to be deterministic or not stochastic bala dhahaa marka uu maxay u yahay if for every value of the dependent macnaha dependent value of hebel soo sheego independent variable ka oo isaga si gaar u istaagi karo oo isna hebel aad meesha soo baxayo hadan hebel ilaano hebel ka soo baxayo hebel markaan hebel ka soo baxayo oo macnaha shaygiiba shay u dhigmaada meesha aan ka helayno kaas markaa waxa relation kaas markaa waxa la dhahaa it is a non-stochastic ama deterministic ama wax la hubo yaa meeshii aan oran karnaa on the other hand relation chain x iyo y u dhaxeeya markaan hebel niraano hebel kale inaan soo sheegno haddii ay naga qaadanayso saadaal ama saadaalin ama probabilistic distribution haddii meesha uu soo gelayo marka meeshaas waxay noqonaysaa kaasi waa stochastic bala dhahaa kii koobaad waa deterministic ama non-stochastic bala dhahaa iyo noqonay kii hebel marka la yiraahdo hebel uu soo baxay kan markan hebel yiraahdo hebel kale uu soo baxay oo hebel kale uu soo sheegna ay nasiib ama probability ay naga qaadanayso kan kale waxa la dhahaa stochastic yaa la dhahaa in such cases for any given value of x the dependent variable y assumes one specific value within some probability qaadan karaa marka waxaan uga dalanahay calculation kii baan soo soconaa marka hor uu noo yahay example baan assume the supply for a certain commodity depend on its price waxaan matalan aan soo assume garaynay supply baan soo qaadanay oo shay la soo geliyo oo isna qiimihiisu ku salaysan yahay shaygaas marka raano qiimihiisu waa inuu matalan haddaan raano nanac
وقيميته waa inuu noo soo baxo hal bar kamana badan kamana karan oo wax meeshii sida saadaalidu soo geliyay ma jiro markaas macnaha annakii oo assume garaynayna wax walba oo affect garayn kara xaggaas kuma dhex jiro ma tixgelinayo meesha ka dhigan tahay marka oo wuxuu yidhi and the function is being linear functionking soo sheegayna waxa weeye waa linear markan waxaan isticmaalinay qaacidadan aan isticmaalinay ka dhigan tahay taas oo ah q waxay la mid tahay q-geeni oo ah supply wuxuu la mid yahay is a function of price for a given supply we have a given price baan leenahay marka xaggan waxaan usii qeexi karaynaa aan ka dhigi karaynaa model econometric model baan ka dhigaynaa anagoo isticmaalina alphagaas iyo betaga baan isticmaalaynaa for every value of p there is only one corresponding value of q waan soo sheegnay this means for all the variation in y or in q waxa ay la mid tahay there is a change in x baan leenahay x-gaas markaa wuxuu leeyahay waa price-keeni macnaha there is no other factor affecting the dependent variable factor affect garayn kara dependent variable-keena xaggan ma jiro ay ka dhigan tahay marka bal matalan waxaan sameynaynaa graph baan u sameynaynaa floating anagoo qaacidooyinkaa soo saarnay oo ah q is a function of price or supply is a function of price kii yaan meesha yaan kusoo qeexaynaa marka graafkii marka aan sawirno waa kan q iyo p labadiiba waan soo sawirnay marka xaggan waxaan haysanaa hal line baa marka meesha yaa noo soo sawirnay ka dhigan tahay marka ansal ay tahay waxa ay ka dhigan tahay marka aysan ay tahay waxay ka dhigan tahay inuu run u noqdo ama uu been noqdo ayaa dhici karta macnaha straight line miyuu imanayaa bay ka dhigan tahay marka q supply-geeni markii uu 5 uu ahaa price-keeni miyuu noqon karaa 10 may or ha or no then xaggan marka waxaan aan ka haysanaa ka dhigan tahay wax aan la hubin ba meeshii yaalla bay ka dhigan tahay macnaha pointigaas ayuu noqon kara taas noqon kara xaggaas noqon kara not only means inuu straight line u noqdo maaha wuxuu noqon karaa graph-ku meelahan imka aan ku point iyo siyo dhan buu mari karaa marka waxa la isla ogaaday meesha ugu habboon line-kaas ayuu macnaha uu mari karaa ka dhigan tahay marka ay tahay waxay ka dhigan tahay deviation baa markii yaa ka yimid ka dhigan tahay deviation macnaha point line-kaas inuu noqon weeyo oo line-kaas point-kii saxda haysi inuu meesha uu line-kaas mariyay ayaa noqon weeyo ayaa dhici karta marka maxaa jira the deviation of the observation from the line may be at deviation-kaas markaa sababa uu ku yimid baa jira taas oo kamid ah omission of variable from function omission macnaha price markaan quantity of supply markaan sheegayno oo ku cabiraynay price-kaas wuxuu location wise buu yaa location baa affect garan karaa suuqa condition of market ka affect garan karaa pocket money-ga gross gacanta ku haysta ayaa affect garan karaa marka variable kale ayaa meeshii jira oo naano ku aan soo sheegin marka taas awgeed meeshan saxda ma hay noqon kartaa or waxay noqon kartaa hadana random behavior of human being maadaama uu bini'aadmigu khaladaadkiisu iska badan yahay marka uu qaadanayo pointigaas inuu la tixgelin baa ayaa dhici karaa modelka laftirkiisa markii la soo seeriyay inuu isna error uu mathematical model error uu lahaa baa dhici karaa error of aggregation inuu meesha u jiray baa dhici karaa error of measurement inuu jiray ayaa dhici karaa marka all in all maadaama error baa meesha ka muuqda in aan sida saxda modelkeena aan u sheegno waa in aan errorkaas aan tixgelinaa errorkaas marka maxaan ku tixgelinaynaa waa anagoo isticmaalaynaa wax la yidhaahdo error term ama random disturbance ama stochastic term wax la yidhaahdo waa in aan ku darnaa oo taas uu tilmaam uu noo yahay cabirkan aan qaadanay error buu leeyahay errorkaasna wuxuu ka yimid maadaama uu waxyaalahan kale uu jiro marka errorkaas let assume u ama epsilon labada term ayaan errorkaas soo sheegi doonaa
by introducing this random variable in the function of the model marka modelkeeni baa imika wuxuu u soo bedelmay ka dhigan tahay run stochastic model buu noo noqday yaba ka dhigan tahay marka imika waxaa aanay qaybtii simple linear regression iyo calculation ka hor dhacayda oo ahayd iyaan marka ayaan oo model walba bilowga ayaan meeshii marka ayaan imika aan u nabadnaba ka dhigan tahay taas oo ah y waxay la mid tahay alpha plus beta x plus u udan insan hore u sheegnay maxay tahay waxaan nariba ahayd error termigeeni baan yaan nariba ahayd alpha iyo beta gani waa maxay baan nari waa parameteryaashii baan nariba ahayd y gani waa maxay waa dependent variable kii aan ka sheekeynay x gani waxa weeyaan waa x ka sheekeynay dependent variable ka sheekeynay oo isla la yiraahdo independent variable marka uu noocan uu yahay oo leenahay one dependent iyo one independent marka xagan waxa la yiraahdaa simple linear regression yani yiraahdaa ka dhigan tahay marka calculation kii xagaas uu ka soo bilaabmaya ka dhigan tahay This is a stochastic model is a model in which the dependent variable is not only determined by explanatory model kenan waxa qeexaya kaliya tamaha uu yiri explanatory variable kan meesha lagu soo xasayo oo ah xi x1 x2 x3 kuwa kaliya tamaha waxa jira wax kale oo anagu aan ku darin oo laakiin lagu soo daray oo ah la yiraahdo u kaas oo ah error term baa la dhahaa ama random disturbance baa la dhahaa ama stochastic term baa la dhahaa marka stochastic model waxa weeyaan waa model oo kaliya lagu xusaynin waxa anagu aan variable meesha ku soo sheegnay oo laakiinse meesha uu leeyahay error term ama stochastic term buu leeyahay ka dhigan tahay marka waa kan waxaan ka soo guudagalnay oo waxa soo wadnaba simple linear regression kii marka ayaan soo istaagnay simple linear regression model waxa la yiri waa stochastic relation buu leeyahay macnaha waxa anagu meesha aan ku qaaxayna ma wax kale oo aan meesha ku qaaxayna uu leeyahay with only one explanatory variable ba meesha ka jira one explanatory variable kaas la sheegay waa xi ga meesha ay ku xibsan macnaha y-gan dependent gaas waxa qeexaya kuliyata hal explanatory ama hal independent variable oo la yiraahdo x gaas oo isna badana korka laga soo interceptive wuxuu leeyahay beta buu leeyahay alpha iyo beta waa xawiyaan waa parameteryaashii yaan meesha ay noqonaysaa ka dhigan tahay the term simple marka aan leenahay waxaan wajeenaa in fact we use only two variables marka meesha laga isticmaalaya two variables kaas oo ah mid waa dependent kalena waa independent variable ba meesha ka jira ka dhigan tahay marka aan leenahay linear isla maxaan uga jeednaa linear waxaan uga jeednaa power of zero power kiisu mar walba uu linear uu yahay to the rest of mid aan x raised to ama x square ama x divisibility mid aan lahayn oo dhan wuxuu noqonayaa markaas linear hadduu mar uu linear yahay linear simple linear regression yaan meeshan aan ka soo xusinaan ka dhigan tahay marka cashirka ku xiga oo ah ka qaybtii calculation-ka ayaan ku isticmaalayna simple linear regression kan inta ayaan guudo galaynaa intaan taa u guudo galayn waxaan aanu si fiican isu istaagaynaa oo define garaynaa 10 assumption oo Microsoft uu soo saaray yaa jira kaas marka ayaa si fiican istaagi doonaa isaga markaan dul istaagno ka bacdi assumptionadiisaas markaan si fiican aan u qeexno iyo haddana aan soo gali doonaa calculation badan yaa marka ayaa insha Allah computer software aan isticmaali doonaa oo cashirku uu yara adag yahay fadlan waa inaan maskaxda balaarinaa oo fahankeenu noo dheeraadaa oo si fiiro gaar ah u yeelanaa oo siiba statistics aan regression-ka iyo correlation-ka iyo aan dib usoo yara qeexnaa
عشر كلمة إنتان كل مدون واحد سجيت يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا جو عباد الطاهر إنجنير عباد الطاهر from حنون virtual academy إنك سوق بنيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.